deegaanka Beeya Garaaca ee ka tirsan degmada Lughaya ee gobolka Awdal ayaa waxay ka mid ahay deegaanadii ay sida baan u saameysay duufaanta isaga ku dhufatay xeebaha gobolka Awdal. Duufaantaasi oo saameyn ballaaran kaga tagtay dadka degan deegaanka Beeya Garaaca. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaankaasi oo ka soo barakacay deegaankii ay ku noolaayeen iyagoona u soo barakacay deegaan 8 kiiloomitir u jira deegaanka Beeya Garaaca. Waxayna cabasho xoogan ka muujiyeen biyo la'aan baahsan oo soo food saartay deegaankaasi. iyagoona baaqyo kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland haysa halkii aan ka soo barakacnay baa noogu dhow 8 kiiloomitir yaan sar uga soo baxnay daadkii iyo duufaantiisi aan uga badbaadnaan halkan ugu soo baxnay waxa imaka noogu daran biyo la'aan haraad baa noogu daran sidaas aan ka codsanaynaa dawladda iyo hay'adaha caalamiga bacaadka iyo haraadka aan taaganahay annaga iyo ubadkii iyo waayeel iyo intii itaal xumayd iyo idaylba haadanoo la joogo waxaan codsanaynaa biyo in la soo gaaro dhibaatada dadka reer Garaacaad ku dhacdayna waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha dawladda iyo ummadda muxsiniintaba inay la soo gaaraan baahiyaha asaasiga ee biyo ugu horeeyaan dalaajiga tuuladani waxay ka mid ahayd tuulooyinka ay galaafatay duufaantaasi taasoo dhib ka geysatay dadweynihii deed barakicisay goobta ay ku taale ay noqotay goob daad mareen caalami ah noogu daran maanta waa biyo kulli noloshu waa 1,000 baa la yiri kowdi waa biyaha kuna waa adeegyada kale oo dhan kowdi baa maanta noogu daran taasaan khatar ugu sugannahay xaqooda kulli waxaan u maanta noogu daran waa biyo waxaan ka codsanaynaa inay Ilaahay idankiisa nolol soo gurmadaan biyo nolosha waraysa wixii kale baa u dambeeyo Ilaahay baana ka sugeynaa sidaasaan u sheegnaa hay'adaha iyo dawladda Soomaaliland iyo hay'adaha danaya gurmadka degdega gabagabadii waxa halkaas ka hadlay Salaadiin iyo sidoo kale duqa degmada Lughaya waxaana ay sheegeen sida horeba loo sheegay in kastoo meeshan joogay waajib baa naga saaran wax qabadka waxaan oran lahaa ani shakhsi ahaan anigu ka suldaan ahaan wixii aan heli karay waan keenay waxaan keenay baaburtaydii wixii aan qaban karay ee dadka heli karana waan keenay waxaan codsanaynaa in lagu gargaaro maayirka iyo tiimkiisa baahida maanta ay u yimaadeen iyo dadka qayliyaaya in wax qabadka loo sameeyo biyahaas hadii biyo la helo nolosha inta kale waa la helaa ilaahayna waa kiini waxa biyuhu waa waxa lagu noolaaday u horeeyay dadku nool yihiin dadkana dhibaato haysta waa biyo dadkana dhibaatadu aad bay ugu habsatay marka waxa loo baahayaa gurmad gacmaha la isqabsado oo magaaliya meel loo eegin aad loogu gurmado ummadda ayaa loo baahayaa maanta Lughaya waa bilaabiyo booyadu ka jabtay Lughaya kolkol laga soo qaadi jiray halkan laga soo qaadi jiray marka nimay waxa ugu daran waxa weeyaan in dawladda aad iyo aad ugu adkeynaya madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha xukuumaddiisa in ay u soo gurmadaan dadka annagu waxaan qaban kareyna qabanay waajib bayna saaran inaan qabanno iyo kana waxa laga rabaa wixii inta ka dambeeyay inay qabtaan runtii xaaladii dhacday baa qasabtayna halkan yimaadaan oo meeshii ay deganayeen waxa isku bedeshay dhul dooxa magaaladiina waxba kama noola adeegii bulshadana waxba kama noola way baabeen maanta halkan caafimaad ugu diyaarsan ma jiro biyo diyaarsan ma jiro waqtiga aynu taaganahay waqtigii xagaagii ugu dareyd aasoo waliba dhacay waxbarashadii ma jirto dadkaasi waxay u baahan yihiin maanta in si degdeg ah in wax loogu qabto iyo u baahan yihiin qayladiina meel baan gaarsiin doonaa waa Jamaal Cumar Tube telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 TV magaalada Boorama.